assalaamu calaykum. Shaydaankii laciinka ahaa asaga ayaa asal u ah dhammaan sharta iyo fasahaadka ka dhaca caalamka. Balse shaydaanku ma ahan keliya Ibliiska, waxaa jiraan shayaadiin badan oo ah carruurtii Ibliiska. Waxaa qof walba oo naga mid ah ku soo dhacaysa su'aal ah, sidee buu Ibliisku ku dhaldhalaa carruurtiisa? Waa tee zawjadiisa oo u dhasha? Muuqaalkan gudihiisa waxaan idinkaga sheekayn doonaa Ibliiska zawjadiisa iyo sida uu uga dhaldhalo carruurtiisa, isugu jirta shayaadiinta iyo jinkaba. Daawasho wacan, balse inta aanan bilaabin, ha iloobin channelka in aad subscribe saarato si aad noo dhiirigeliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Kadib markii uu Ibliiskii laciinka ahaa diiday amarkii Alle subxaanahu wa tacaala oo ahaa in uu u sujuudo Aadam, Alle ayaa lacnaday oo ka soo tuuray jannada oo ku soo tuuray dhulka. Isla markaasna Ibliiska ayaa go'aan ku qaatay in uu baadiyeeyo bani aadamka oo uu kediyo ilaa iyo qiyaamaha. Ficlanna wuxuu bilaabay in uu dhaldhalo shayaadiinta oo uu siyaadsado carruurtiisa iyo wixii raacsan. Wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala nooga digay in aan raacno isaga iyo carruurtiisba. Wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala nagu yidhi: afatattakhiduunahu wa dhurriyyatahu awliyaa'a min duuni wahum lakum caduwwun bi'sa lidh-dhaalimiina badala. Qolka Eebe ee ku jira aayaddan ee ah wa dhurriyyatahu wuxuu daliil u yahay in shaydaanku uu leeyahay carruur. In la dhaho carruur ma lahan waxay si toos ah uga hor imaanaysaa aayaddan. Wax kasta oo aayad Qur'aan ah ka soo horjeedana waa shaki la'aan in ay baatil yihiin. Balse waa tee Ibliis zawjadiisa? Culimmadu waa ay isku khilaafeen xadidaadda zawjadii Ibliiska iyo qaabka uu u tarmo. In badan oo ka mid ah waxay ku tageen in Ibliisku uu leeyahay zawjad, taasoo u dhasha carruurtiisa iyo atbaacdiisa shayaadiinta ah. Ma jirto riwaayad la hubo oo ka warramaysa magaca iyo asalka zawjadda Ibliiska. Shacbiyi wuxuu yidhi, ninbaa wuxuu i weydiiyey, Ibliisku xaas ma leeyahay? Waxaan idhi, kama aanan qayb galin arooskiisa. Kadibna waxaan xasuustay qowlkii Eebe ee ahaa: afatattakhiduunahu wa dhurriyyatahu awliyaa'a min duuni. Markaasaan ogaaday in carruur aysan jiri karin xaas la'aan. Markaasaan idhi, haa. Mujaahidna wuxuu yidhi, qaabka uu u dhaldhalo Ibliisku carruurtiisa iyo nasligiisa waa in uu isla isagii farjigiisa isugu galmoodo, kadibna wuxuu dhalayaa 5 ukumood. Wuxuu yidhi, sidaas ayaa asal u ah carruurtiisa. Qaar ka mid ah ahlulcilmiga waxay dhaheen, bowdadiisa midig ayuu Alle subxaanahu wa tacaala ugu abuuray dakar, midda bidixna wuxuu ugu abuuray farji. Markaasuu isku nikaaxiyaa, maalin walbana waxaa u dhalato 10 ukumood. Ukun walbana waxaa ka soo baxdo 70 shaydaan oo isugu jirta lab iyo dhadig. Dhammaan riwaayadahan ma ahan kuwo la isku hubo, maxaa yeelay kuma soo aroorin Qur'aanka iyo sunnadaba. Xadiis saxiix ahna waxaa ku soo arooray in ay jiraan shayaadiin kala duwan oo mid walbana uu leeyahay shaqo gaar ah. Wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam yidhi, ha noqon qofka ugu horreeya ee suuqa gala, hana noqon qofka ugu dambeeya ee ka soo baxa. Shaydaan ayaa ku dhaldhala ukumihiisa oo ku jejebiya. Taasna waxay muujinaysaa in shaydaanku uu leeyahay carruur ka soo baxda dhabarkiisa. Marka aan eegno magacyada carruurta Ibliis iyo muhiimadooda, waa ay badan yihiin, wayna kala noocyo duwan yihiin. Qaarkood ayaan hadda sheegi doonaa. Tabari iyo keyrkiisba waxay sheegeen in Mujaahid uu yidhi, carruurta Ibliiska waa shayaadiinta, wuuna tiriyey. Waxay kala yihiin: Zalambuur waa kan u qaabilsan suuqa. Al-Acwar waa kan u qaabilsan in uu kugu furo albaabada zinada. Al-Abyad waana kii waswaasin jiray ambiyada.
iyo Sakhar waana kii xaday faraantigii Nabi Suleymaan calayhi salaam. Cusmaan ibn al-Caasna waxaa laga wariyay in uu u tagay rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo uu ku yiri: rasuulkii Allow, shaydaan ayaana soo dhaxgala aniga iyo salaadeeda iyo quraan akhriskayga oo kadibna iska kay dhaxyaaciya. Wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ku yiri: kaasi waa shaydaan lagu magacaabo Khinzib. haddii aad dareento, alle isaga magan gal, dhinacaaga bidixna u tuf 3 jeer. Wuxuu yiri: waan sameeyay sidaas, kadibna alle subxaanahu wa tacaala ayaa iga tagsiiyay. kuwan dhammaantoodna waa wixii naga soo gaaray culimada oo ku saabsan zawjada iyo caruurta ibliiska. waxaan filayaa inaad ka hesheen muuqaalkan. haddii aad ka heshay, like saar muuqaalka, hana iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad noo dhiirigeliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.